السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. halkani waa Cream Trading Professional waxaanu qaadan doonaa dhowr trade insha Allah. Marka hore sidii caadi ahayd waxaan iska check garan doonaa waxa newsiska loo yaqaano kadibna waxaan ku qaadan doonaa systemkeeni ama strategiyadeeni ahayd RSS strategy ama Rabila super strategy. Okay, waxaan u baahanahay inaan qaato trades kooban ayaan runtii qaadan doonaa 7 ilaa 6 trade. marka koowaad waxaan sameyn doonaa inaan calaamadsado leefaliskaan isleeyahay suuqu waa ixtiraami doonaa ama se aan filayo in macnaa suuqu ii istaagi doono. leefalka markaan calaamadsado gambaleelka ayaa ku xidhan doonaa. marka uu suuqu ii yimaado waxaan isticmaali doonaa confirmationskii runtii aan isticmaali jirnay. Okay, halkanna sidoo kale waxaa iga muuqda leefal ayaa runtii iga muuqda strong leefala. leefalka aan calaamadsaday waxaan u isticmaali doonaa marka la yimaado inaan u isticmaalo as a reversal. haddii sidoo kale aan helo fursado iyaguna continuation sayna waan qaadan doonaa. haddii sidoo kale fursado breakouta waan qaadan doonaa. fursad kasta oo runtii helo waan qaadan doonaa. Okay, lacagta tan loo yaqaano GBP USD waxaad moodaa inay noo soo dirtay chaliska ama soo gaadhay meeshii aan doonayay markaasi inaan ka qaato. confirmation baan sugi doonaa. haddaan helo confirmation kaan doonayo tradekeena directly waan qaadan doonaa. Okay, ma arko runtii confirmation waa arkaa oo reversal ka dhan weyn helnay, laakiin waxaa jira liquidity ama se gap ayaa runtii jira oo candlekaas hadda ma qaadan karno. Okay, candlekaas hadda ma qaadan karno. Okay, waxaan isku dayi doonaa in uu suuqaas ii soo noqdo isla markaana igu soo noqdo xaggayga hoose. suuqan oo kale hore ayaan isagana u calaamadsaday. haddaad aragtay GBP AUD sida ay noo soo dirayso waxay soo gaadhay sida muuqata levelkeeni. Okay, kanoo kale hadda labada lacagoodba waa isbarbar dhigi doonaa inoo fiican aynu qaadan doonaa. Okay, sidoo kale AUD USD ayaad moodaa iyaduna in isdiyaarisay. GBP AUD waan qaadan doonaa iyada waan qaadan doonaa. waay aan u qaatay waan sharaxi doonaa, laakiin lacagta loo yaqaano AUD USD iyada weli ma hayno confirmationkeena ku qaadan lahayn. lacagtan waxaad ila arkaysaa runtii inay samaynayso reversal candlekii iyo levelkii iyo wixii dhan aan ka helay. waxaa loo yaqaano marginal safety ayaa fiican inaad markaas kala dusha kaga soo qaadato sida aynu ku sheegnay ama markaaynu istaraatiijiyadeena sharaxayno aynu runtii ku sheegnay. Okay, hadda tanoo kale u fiirso. Okay, waa wingaraynay sida muuqata. lacagta tana waa wingaraynay maadaama ay runtii tahay sidaynu doonaynay ay noqotay ama ruleskiina waafaqday. GBP AUD waa wingaraynay. waxa ii soo gaadhay levelkaygii lacagta loo yaqaano AUD USD iyo GBP USD labadaba waa qaadan doonaa ama se waa trade garan doonaa. maxaan sugayaa? waxaan sugi doonaa confirmation. labadoodaba waxaan sugi doonaa confirmation. haddaan helo confirmationkii waan qaadan doonaa. hadda anigu wax confirmation haba yaraatee ma arko. confirmation labada lacagood midna kama arko because tan waa ku dul xulmay candleku, laakiin candlekaas is not reversal sign. candlekaas runtii wiigiisa iyo burigiisa waa isleeyihiin. sidoo kale kan kalena waa lamid. labada noocba ma arko wax reversal sign. waan isbarbar dhigi doonaa. still waxaan sugayaa waa maxay? still waxaan sugayaa waa reversal sign. kaan ka helo reversal sign waan qaadan doonaa. haddii kalena rulekii kale breakoutka aynu isticmaali jirnay ayaynu isticmaali doonaa. Okay, tanoo kale GBP USD waxay u muuqataa maadaama la jibiyey. Okay, AUD USD iyada waan qaadanaya. Okay, AUD USD iyada reversal signkii waan helay waan qaatay. lacagta loo yaqaano GBP USD waxaan sugi doonaa confirmation ka dhan. Okay, good waan qaatay iyadana runtii waa qaadanay. lacagta loo yaqaan GBP USD-na waa qaadanay. labadoodaba waa qaadanay. midna waxaan ku qaadanay rulekeenii breakoutka markuu inoo waafaqo aynu isticmaali jirnay. qodobka kaleta ku qaatay wuxuu yahay runtii reversal candlekii ayaan ka helay abda level ama se levelka ayaan ka helay. Okay, labadii lacagood tii aynu reversal sign ka helnay waa wingaraynay, laakiin 5 second confirmation keeni ma wingaraynin ama se maynu wingarayn waynu loss garaynay. Okay, no problem. hal trade oo aynu loss garaynay dib male. waa soo recover garaynaynaa. dib aynu soo recover garayn doonaa inagoo isla intan ilaga isticmaali doona runtii. Okay, sababtan ku loss garaynayna waa sheegi doonaa insha Allah. Okay, Euro USD hadda ima muuqdo. fursad aan ka qaadan karaa igama muuqato. GBP CAD ayaa runtii aad moodaa inaan level aan calaamadiyay soo gaadhay. Okay, iyo GBP Jabayna soo qabto. Okay, labaduba runtii waxay soo gaadheen levello aan ku sugayay ayay soo gaadheen. kana hoose laftirkiisa waa level, laakiin already level hore ayay soo jebisay oo jira inay soo jebisay. labaduba runtii waa soo jebiyeen. waxaan isticmaali doonaa 5 second confirmation key. Okay,
haddaan helo 5 second confirmation waan qaadan doonaa labadoodaba 5 second confirmation. Okay, tan waan qaadan doonaa tan labaad laakiin weli ma arko 5 second confirmation. GBP Jabai weli ma arko wax 5 second confirmation. GBP Jabai still ma arko 5 second confirmation. laakiin GBP CAD waxaan helay 5 second confirmation keygii. waxaan helay 5 second confirmation keygii oo kaleera ayaa runtii helay kadibna traderkayga waan qaatay. adiga maxaa laga doonay? adiga laguma doonayo runtii inaad tableefan iska qabsato 5 second confirmation direct inaad iska tuurto. 5 second confirmation kaad eeganaysaa macna uu ku fadhiyo oo runtii ku jira ayaa runtii meesha jira oo loo baahan yahay inaad isticmaasho before. GBP Jabai kamaynu helin 5 second confirmation keygii saxda ahaa waa iska diinay oo ma qaadan fursadeeni maynu qaadan. halkaa hoose ayaynu ku sugi doonaa. Okay, weli halkaa aynu casharadan runtii kala soconnaa waa Cream Trading Official. si runtii casharaantan iyo istaraatiijiyadaha oo aynu soo badinaa runtii ay inagu soo galaan kanaalkeena YouTube-ka. isku day inaad casharaanta share garayso ood runtii dad badan gaarsiiso si casharaanta runtii aan la wadaagayaan runtii ay u noqdaan badan ama aan runtii YouTube-keena aan kula wadaago insha Allah. Okay, tan fursad ayaan ka sugi doonaa. Still ma hayo waxaa loo yaqaano 5 second confirmation ma hayo maadaama aanan hayn traderka waa iska ignore garayn doonaa ama se ma qaadan doono ma qaadan doono. Okay, waxaan diidayaa waa fursadaan qaato oon trade gareeyo lacagteeda ku aamina ayaa runtii diidaya. AUD Jabai baa soo gaadhay level sida muuqata laakiin weli lama active garin meeshaan doonayna waa halkaa hoose. halkaa aan ku xidhay jaraska ayaa runtii doonayaa in la soo gaaro. marka iyada la soo gaaro tradekayga waa qaadan doonaa. inta ka horeysa dibadda ayaa ka joogi doonaa. Okay, kaleer hadda sel ayaan u qaatay. Why aan hadda fursadda halkaa uga qaatay? fursadda hadda waxaan u qaatay as a continuation. haddaad dhigatay courseskeena continuation saynka aynu ku sharaxno waad garan kartaa rulekaas sababta aynu qaadanay iyo sababta aynu tradekaas ugu qaadanay selka. waayo aynu qaadanay waxaynu haysanaa continuation sign. sidoo kale waxaynu haysanaa laftiga rulkii isagana laga eegi jiray ee ahaa in markaasi uusan wax level runtii jirin. Okay, sidoo kalena waynu haysanaa momentumkiina waa haysanaa. Okay, waxaan weli sugi doonaa maadaama kan waa traderkii koowaad aan ka qaatay lacagtan. waxaan ka sugayaa in aan ka helo another trade maadaama levelkaygii timi reversal candle baan sugayaa ama se 5 second confirmation. hadda candlekaas hore is not reversal sign. candlekaasi ma aha runtii haddii lagugu macneeyo waa spinning bottom is not spinning bottom. candleka noocaasi runtii lama idhaahdo waa spinning bottom lama idhaahdo. Okay, 5 second confirmation baan daydayi doonaa. haddaan helo 5 second confirmation waa qaadan doonaa traderkaas directly ayaan runtii u qaadan doonaa. good, waay aan u qaatay because waxay ii ixtiraamtay ama se lacagtaasi runtii ii samaynaysaa confirmationskeedii ayay inoo samaysay kadibna traderkeeni directly ayaan runtii u qaadanay. waaynu u qaadanay halkaas laakiin no problem. waxaa khasaba in halkaa aynu calaamadinay ka kor maro. Okay, good. isagana runtii waa weyn garaynay ama sidaynu doonaynay waa noqday. hal trader kale ku dari doonaa ilaa 2 trader kale si insha Allah aan inagu soo gabagabeeyay. Okay, fursadana waa qaadanay. waxaan ku qaadan iyada laftirkeeda reversal waxaan ku qaadanay waxa loo yaqaano 5 second confirmation keeni. euro AUD euro USD baan tigi doonaa. maxay timi level aan calaamadsadan muddo sugaya ayay timi. level kan runtii aan qabsanayo rules uu leeyahay oo laga doonayo inuu waafajiso ayaa runtii laga doonaya. haddaad ruleska waafajiso sida tan u isticmaasho maalin kasta 8 trader ama 10 trader kaleerka waa heli doontaa. ma geli doona lacagtaas. maxaa dhacay? candle strong candle ayaa runtii noqday 5 second confirmation kan doonayay wuxuu noqday strong candle ku inta badan waxa ku jira wax loo yaqaan manipulation. is not in ka geliyo late entry qura maaha wuxuu sameeyaa wax loo yaqaano manipulation oo macnaheedu tahay beenguur. wuxuu sameeyaa maxay manipulation ama se beenguur ayuu sameeyaa. hadda maxaa candle ka dhacay? manipulation buu ahaa. aniga maxay iga qabtay? ruleskiga ayaa iga qabtay inaan candle kan qaato. halkaa hoose ayaan mar kale calaamadsan doonaa. halkaa hoose ayaan ku sugi doonaa tradeka marka uu yimaado waa trade garayn doonaa anigoo markaas arkaya levelskii la jibiyey inay laftiga iga xigaan oo levelka hadda la jibiyey kaas dhaqaaqaasi jibiyey waa kana waa kaasa. maadaama intaa haysto waan qaadan doonaa tradeskiga. Okay, si runtii istaraatiijiyadda iyo systemska insha Allah aan nagu soo sharaxo isku dayna 10 ka share garaysaan oo runtii aad dad badan gaarsiiso si aad systemka iyo istaraatiijiyadda runtii aad uga hesho kanaalka Cream Trading Official. Okay, tradekaas halkaas aan calaamadsan doonaa. anigu ma arko tradeka fursad aan ku qaato. hadda candlekaas waa continuation sign waan odhan karaa laakiin ma qaadan karo fursadayda. Why? Because there is no rule. ma hayo wax rule.
okay Eurojabai ayaa soo gaadhay level qurux badan oo hadda jebisay waxaan sugi doonaa iyada iyo sidoo kale Euro AUD laftarkeedana waxay soo diraysaa sadab ay soo diraysaa ayaa jira labada lacagood tan fursadda ka hela waan qaadan doonaa haddaan labadoodaba ka helana waa qaadan doonaa ama se waa trade gareyn doonaa hadda ma qaadanayo maadaama strong week meesha ku jiro candle haddii wiigiisu soo yaraado 5 second confirmation la tegi doonaa good candlekiis wiigiisu waa soo yaraaday maxaan sugayaa 5 second confirmation baan sugi doonaa weli ma hayo 5 second confirmation Euro AUD na meeshaan doonay weli ma soo gaarin hadda waan qaadan doonaa lacagtaas Eurojabai waan qaadanay waayaynu qaadanay because waa helay ruliskeeni waynu helay ruliskeeni ahaa in levelka la jebiyo isla markaana ruliskii kale ee ahaa in marka levelka la jebiyo qodobadii la sameynaya waynu ka aragnay that's why ayaynu runtii u qaadanay sababahan trade-ka u qaadanay runtii waad garan karaysaa ama waad sharaxi karaysaa runtii haddaad ka mid tahay ardayda cream trading official ee runtii courseskan ama qaybo ka mid ah runtii qaadatay hadda lacagtan anigu weli ma qaadanayo why because reversal sign weli ma hayo waan hayaa halkan dhan ama kandhala waa ku jiraan laakiin manipulation ama si weli waxa meesha ku jira waxaa loo yaqaano gaabkaas haddii la xidho isla markaana la sameeyo waxaa loo yaqaano reversal sign waa trade gareyn doonaa haddii kalena lacagahaas waa iska ignore gareyn doonaa tan hadda candlekaas is not breakout candlekaasi ma aha runtii breakout intaas insha Allah sii joojin doonaa kaasina los gareynay waxaynu weyn gareynay toddobadii kale trade waa weyn gareynay masha Allah waa weyn gareynay toddobadii trade kale waa weyn gareynay waa iska xiri doonaa haddaynu one more time historyga eegno toddobadii trade u dambeeynu qaadanay sidaynu doonaynay aynu runtii u weyn gareynay oo masha Allah intaynu kulankan ama casharkan kale runtii ku kulmi doono waxaan doonaynaa inaynu share gareyno channelka si runtii dad badan runtii u gaadho oo runtii uga faa'iidaystaan systemkan ama istaraatiijiyadan aan hadda sharaxayo oo runtii iska badbaadi doonto inaad IQ option ama binary and digital option aad lacag ku loos garayso maadaama ay tahay runtii rules aynu isku keenay isla markaana aynu kasoo dhex saarnay wax shaqeeya oo runtii adigana ku shaqeyn doona anigana ay runtii shaqeeya maadaama runtii wuxuu rules leeyihiin isku day inaad share garayso kanaalka dad badan runtii gaarsiiso intaynu casharkana kala ku kulmi doono asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu